iyadoo dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliland inta badan ay ka cawdaan shaqo la'aan baahsan oo ka jirta dalka ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro ayaga ka shaqeysta qodista xabaalaha ama qubuuraha waxaana warbixintan inoogu diyaariyay wariyaheena Cumar Seelbiya. halkan aad arkaysaan waa qubuuro ku yaala waqooyi bari ee magaalada Hargeysa waxaana loo yaqaanaa xabaalaha Naasa Hablood tanina waa buurta Naasa Hablood ee xabaalahani loogu magac daray waqtigu waa subax hore waxaan ka baxay magaalada Hargeysa waxaan gaaray goobta xabaalahani ku yaalaan halkaas oo ballan kula lahaa Ibrahim Ahmed oo isaga hal maalin ka hor aanu halkaasi ku kulannay Ibrahim oo 30 jir ahi waxa uu degan yahay meel ilaa 100 tallaabo dhanka waqooyi ka xigta xabaalahani Naasa Hablood halkaas oo kula nool yahay xaaskiisa iyo carruur u dhalay Ibrahim hadda waxa uu ka soo baxay guriga isagoo markaasi u soo diyaar garoobay shaqo maalmeedkiisa waxaan isku soo raacnay dhanka shaqadiisa iyadoo ay markaasi un cadceeduna soo baxaysay Ibrahim waxa uu 3 sano ka shaqaynayay qodista xabaalaha taasi oo uu ka soo saaro nolol maalmeedka ay quutaan isaga iyo qoyskiisu shaqadan uu dadka u shaqeynaa ilaahay dirtiyo wixii seenon qaadana saadaraanteed baahid dad kale oo qaban buu noqonaa nin xaaslabatay goordho gurigeena soo aragno ka nimid bal noloshaada sidee ugu filan tahay bay kula tahay qodistan xabaalo nolosheeda masaariftoon kala la xafada ya leeyligu maan kala Ibrahim ayaa sheegay inay diyaariyaan isaga iyo koox ay saaxiib yihiin oo subaxaasi wali soo shaqo tagin laba xabaalood maalintiiba taasi uu ku saleeyay inay jiraan dad badan oo hadda lagu aaso xabaalahani Naasa Hablood balse intii halkaasi joogay indhahaygu ma qabanin cid markaasi Ibrahim uu ka iibinayay xabaalo u diyaarsana ku dhawaad 30 dhalinyaro ah oo ka kala yimaada qaybaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ayaa u soo shaqo taga xabaalahan sida uu Ibrahim ii sheegay mana jirto wax cashuur oo laga qaado kooxdani xabaalaha qoda iyadoo ay qaabka u iibiyaan ay ku xiran tahay qofka iyo sida isku fahmaan ehelada dadka lagu aasayo halkani aantaan uu mudun baan qod karaa leeyahay markaan la shaqo salaam la saddex ugu badna iyo laba iyo shakhsi inta majority laban ku wadna sida lacagta kala qabsataan faber baan qaybsana تصالحان 300 kala qaataan 3 qofna wati 300 baan qaadana waan gartay bal nolosha dhalinyarada halkan xabaalaha ka qota noloshooda maxad ka qaasreed bal ii sawir noloshooda waa nin yeeso isku dhiga kartidiisa qaar wax dhigta qaar wax dhigan fikradda bulshada inteeda kala ka qabto xabaal qodayaasha ayaa ah mid ka durugsan sida uu Ibrahim ii sheegay macnaha dhabta ay leedahay shaqadan qodista xabaaluhu waxaana Ibrahim Xuseen ay la mid tahay shaqooyinka ay qabtaan bulshada inteeda kale Ibrahim waxa uu mar kale ka hadlayaa qaabka ay u qodaan xabaalaha iyo sida ay ula shaqeeyaan dadka xabaashani ka iibsada dadana yar bal gooyo xaga ilkana waa 2 mitir joogna on ka dhigna saasan ku dhamaystirnaa ciidada gooyo dhamaad marka dhammaan dhagaxyo xasal kala markan sano waa maaranta ciid adag xalan diyaariyay maanta aan dhamaystirnaa marka saaka iib diyaar u tahay yar ka dhimantaa marka tiro walaal maalin baa si magac axmed mudane dhashada si badanta markan xabaasha diyaarsan dadka ka iibsadaan meed ka caawisan ilaa aastaanka mise idinku waxaad kaga dhantahay marka xabaasha iibsan ilaa aastaan ka caawina waxaan alab helino wax kala alabtana soo qaataan wax helay ciidana iyaga gurugtay dadku qiimaha ku qodaan xabaasha Ibrahim iyo saaxiibadii ayaa dhan 300 shilinka Soomaaliland ah oo dhiganta ilaa $50 Mareykanka ah wala uu sheegay Ibrahim inay dadka danyarta u sameeyaan qiimo dhimis Cumar Seelbiya Somali Channel Hargeysa iyadoo dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliland inta badan ay ka cawdaan shaqo la'aan baahsan oo ka jirta dalka ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro ayaga ka shaqeysta qodista xabaalaha ama qubuuraha waxaana warbixintan inoogu diyaariyay wariyaheena Cumar Seelbiya halkan aad arkaysaan waa qubuuro ku yaala waqooyi bari ee magaalada Hargeysa
waxaana loo yaqaanaa xabaalaha naasa hablood tanina waa buurta naasa hablood ee xabaalahani loogu magac daray waqtigu waa subax hore waxaan ka baxay magaalada Hargeysa waxaan gaadhay goobtay xabaalahani ku yaalaan halkaas oo ballan kula lahaa Ibrahim Ahmed oo isaga hal maalin ka hor aanu halkaasi ku kulannay Ibrahim oo 30 jir ahi waxa uu degan yahay meel ilaa 100 tallaabo dhanka waqooyi ka xigta xabaalahani naasa hablood halkaas oo kula nool yahay xaaskiisa iyo carruur u dhalay Ibrahim hadda waxa uu ka soo baxay guriga isagoo markaasi u soo diyaar garoobay shaqo maalmeedkiisa waxaan isku soo raacnay dhanka shaqadiisa iyadoo markaasi cadceeduna soo baxaysay